السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا سلام يا أصحاب تقاليقة مeel walba dunida ka joogtaan. waxaan ka codsan lahaa walaal inta aadan qisadan ugu galin fadlan like saar fiidiyoga. maalmaha ka mid ah waxaa dhacday asxaab taqaaliga ah. maamadan idin muuqato waa maamo taajir ah. cunadan miiska saaranna waxay ugu talagashay faamilkeeda. gabadhii guriga ugu weyneed ayaa imaaday. cunadii inta aysan cunin ayay waxay aaday balkoonka. balse maxay la kulantay? waxay aragtay laba wiil yaryar ah oo weliba isla dhashay, aana waxba haysan. meeshii macmacaanka lagu sameynayay ayay waxay ka damceen cunno, wayna weydiisteen. gabadhii aad bay u eegaysaa. ninkii carruurtii wuu buriyey. markuu buriyey kadib gabadhii way ka xumaatay. gabadhi markaas waxay u noqotay guriga gudaha, waxayna aad u fiirisay cunadii miiska lagu soo sharaxay. midba mid ayay fiirisay. markaasay istiri, adigu intaan ayaad haysataa, intaana kolley waxbaa ka soo harayo, waana la daadinayaa. carruurtaasna waxay la oonayaan baahi. gabadhii waxay go'aan ku gaartay inay cunadii u soo qaato ee weliba fadhigooda ay ugu keento. ilmihii cunadii marka loo keenay way farxeen. maalintaasoo keliya uma aysan keenin ee maalin waliba ayay u keeni jirtay, weliba cunto kala duwan. wiilasha mar waliba aad iyo aad bay u farxi jireen. ayadoo ficilkan samaynaysa ayaa balkoonkii waxaa ka aragtay hooyadeed. gabadhii maalin maalmaha ka mid ah waxay u soo qaatay cunno, laakiin nasiib daro ilmihii basushinkay ku ogeyd way ka weysay. ayadoo ka walwalsan oo isleh ilmaha wakhtigan maxay ku sugan yihiin ayaa albaabkii la soo garaacay. nasiib wanaag waxaa imaaday labadii wiil iyo weliba carruur kaloo la socdaan. alxamdulilah, waa la wada qaabilay. faamilka, hooyo, aabe, gabadha way qaabileen carruurtii. weliba aad bay u soo dhoweeyeen, waxayna siiyeen cunno aad iyo aad u kala duwan. walaalayaal, wakhti walba isku daya inaad fiirisaan qofka idinka hooseeyo. maxaa yeelay mar waliba haddii qofka idinka sareeya aad fiirisaan, qofka idinka hooseeya waad iloobaysaan. hadhowdina yaa caawinayo walaalayaal. haddii qof walba qofka ka sii taajirsan uu fiiriyo oo la tartamo, qofka hooseeya ayaa lumayo. marka walaalayaal, mar waliba isku day inaad caawiso qofka kaa hooseeyo. maxaa yeelay mar walba qofka kaa hooseeya haddaad caawiso, ogow ducadiisa ayaad ku barakoobaysaa. aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin daawashada aad daawateen fiidiyowga. fadlan waxaan kaa codsan lahaa inaad gaarsiiso fiidiyowga walaalkaha kale. jazaaka allah.